agaasime soo dhawow adigoo magacaaga saddexan ku bilaabaya marka xigtana bal faahfaahin naga sii waxyaabaha aad og tahay ee loo xiray majaajiliista Ajax. السلام عليكم ومعي عبد الله حرس كلمية ولكن Ajax waxaa lagu xiray airport ama madaarka Hargeysa oo la shaqeeyo socday xafiiskeena Hargeysa mar allaale markuu saaki ka dagay ayaa la yiraahdiga joog dadkii kala la fasaxay markii u dambeysana waxa la sheegay ay u sheegeen innagana inuu soo gaarsiin inuu xiran yahay barnaamij faaliha qaranka hadda soo oo siiday intaas ayaan hadda ka ognahay xaaladiisa dadaalo badan ayaa jira inuu xurriyadiisa u helaan ku dadaalina laakiin ilaa hadda uu xiran yahay agaasime in badan uu sii daayay Ajax barnaamijka faaliyaha qaranka marka barnaamijkaas ma guud ahaanba loogu xiray mase waxyaabo kale oo gaar ah oo ay sheegeen jiro dadka haysta maya waxyaabo gaar ah ma ay sheegeen waxay leeyihiin barnaamijka faaliyaha qaranka ayuu habeen ka sii daayay wax mid ku ah maamulka maxaa la dhahay madaxweynaha Somaliland arrintaasna annaga iyo Somaliland mas'uuliyiinta sarreeyta waa ka wada hadalnay waa dhamaysanay almost waxa ka soo wareegtay yeeran haafa ka soo wareegtay hawshaas markaan dhamayno marka sabab hadda Ajax la xiro annagu ma garanayno waxaan la yaabana barnaamijkaas aad og tahay loo xiray Ajax maadaama in badan barnaamijka uu sii deeyay ayna sheegeen iyaga inay hal barnaamij oo ka mid ah ay u haystaan muxuu ku saabsanaa barnaamijkaas oo aad ka og tahay walaalow clarification ma aanay samaynin ay leeyihiin sidii barnaamijkaas oo asaas u ahaa midna maanay dheen barnaamijkaas ayaa madaxweynaha Somaliland wax looga sheegay ninkana ka sheegay TV-gu maamul uu leeyahay mas'uuliyiin uu leeyahay waa ka hadalnay waa dhameynay sabab hadda Ajax loogu haysto airport ama madaarka Hargeysa wax annagu waxaan garanaynaa ma aha oo aaminsanahay inayna saxayn xaragiisa waxyaabaha la idin sheegay ee idin soo gaaray wararka ku saabsan hadda xagee lagu hayaa hadda waxa lagu hayay madaarka hadda waa laga gudbiyay waxay yiraahdeen waxaan u gudbinaynaa qolaan dambe baarista CID-da qolaasaan u gudbinaynaa yiraahdeen dadaalo badan ayaa jira inuu banaanka already talano insha Allah waa rajaynayna laakiin sida loo qabtay iyo waxa lagu eedeeyay labaduba waxaan aaminsanahay inaanay sax ahayn oo wax laga wada hadlay oo dhamaaday sanadii barka hor bay ahaayeen wax hadda cusub oo aan dareensanahay ama aan isleenahay uu ku mutaysan karaa xarig ma jiro xorriyadda saxaafadda Somaliland waa wadan intaan ognahay waa dad dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxaafadda ku dadaala maanan malaysanayn xilligan inay imaanayso xarig in fanaana oo caan ah oo komitista ah ummadda dhan ay wada taqaano wax gooni oo haleeyaanay jirin inay xiraan waxay nagu noqotaa in lagu cusub oo bajaysa yaa kala shaqaalaha TV-ga ka tirsan oo la socdo maya idin lama socon safarkiisa kaligiisa ugu dambeyn hadda rajo intee la egaad leedihiin sii diintiisa xiriirada aad sameeyeen iyo dadaalada aad wadaan rajo weyn aan leenahay qaar mas'uuliyiinta kamid ah u arkayay inay khalad tahay arrintaas in wax la saxanay gaar u yihiin marka rajo weyn aan ka qabnaa isku soo duuba xarigiisa waxaan aaminsanahay inuu saxayn ugu dambeyn waan ku mahadcelinayaa waxaan ugu dambeyn aan ku weydiinayaa in badan maamulka Somaliland waxyaabo badan xariga badan ay geysteen saxaafadana inta badan waa la caburiyaa maxaad baaqo aad jeeginaysaa agaasime Cabdullaahi Xirsi Kulmiye waxaan leenahay ma aha maamulka Somaliland kaliya ama ma aha mas'uuliyiinta Somaliland waxaan u baaqayaa nin walba oo mas'uul ah oo Soomaaliya meel kasta uu joogo inuu xaq dhowro xorriyatul qowlka iyo suxufiga iyo xorriyatul qowlku waa muhiim in maaragtay la xaq dhowrka suxufigana qof walba mas'uuliyadiisa waajib ay ku tahay waad mahadsan tahay markalena kaaga mahadcelinay waqtigaaga aad ma sheegeen innagana inuu soo gaarsiin inuu xiran yahay barnaamij faaliha qaranka hadda soo oo sii daayay intaas ayaan hadda ka ognahay xaaladiisa dadaalo badan ayaa jira inuu xurriyadiisa u helaan ku dadaalina laakiin ilaa hadda uu xiran yahay
agaasime in badan uu sii daayay ajakis barnaamijka faaliyaha qaranka marka barnaamijkaas ma guud ahaanba loogu xiray mase waxyaabo kale oo gaar ah oo ay sheegeen jiro dadka haysta maya waxyaabo gaar ah ma aysan sheegin waxay leeyihiin barnaamijka faaliyaha qaranka ayuu habeen ka sii daayay wax lid ku ah maamulka maxaa la dhahay sheeg madaxweynaha Somaliland arrintaasna annaga iyo waa ka hadalnay waa dhameynay sabab hadda ajakis loogu haysto airportka ama madaarka Hargeysa wax annagu waxaan garanayna maaha saxna ma aha oo aaminsanahay inayna saxayn xarigii waxyaabaha la idin sheegay ee idin soo gaaraya wararka ku saabsan hadda xagee lagu hayaa hadda waxaa lagu hayay madaarka hadda waa laga gudbiyey waxay yiraahdeen waxaan u gudbinaynaa qolyahan dambi baarista CID-da qolyahaasaan u gudbinaynaa ay yiraahdeen dadaalo badan ayaa jira inuu banaanka already talana insha Allah waa rajaynaynaa laakiin sida loo qabtay iyo waxa lagu eedeeyay labaduba waxaan aaminsanahay inaanay sax ahayn agaasime soo dhawow adigoo magacaaga saddexan ku bilaabaya marka xigtana bal faahfaahin naga sii waxyaabaha aad og tahay ee loo xiray majaajilista ajakis السلام عليكم ومعي عبد الله حرس كلمية walaalkeen ajakis waxaa lagu xiray airportka ama madaarka Hargeysa oo la shaqo ayuu u socday xafiiskeena Hargeysa mar allaale markuu saaki ka degay ayaa la yiraahday adiga joog dadkii kala la fasaxay markii u dambeysay waxa la sheegay Somaliland mas'uuliyiinta sarreeyta waa ka wada hadalnay waa dhamaysanay almost waxa ka soo wareegtay yeeran haaf ka soo wareegtay hawshaas markaan dhamayno marka sabab hadda ajakis loo xiro annagu ma garanayno waxaan la yaabanahay barnaamijkaas aad og tahay loo xiray ajakis maadaama in badan barnaamijka uu sii deeyay ayna sheegeen iyaga inay hal barnaamij oo ka mid ah ay u haystaan muxuu ku saabsanaa barnaamijkaas oo aad ka og tahay walaalow clarification ma aanay samaynin ay leeyihiin sidii barnaamijkaas oo xasaas u ahaa midna maanay dheen barnaamijkaas ayaa madaxweynaha Somaliland wax looga sheegay ninkana ka sheegay TV-gu maamul uu leeyahay mas'uuliyiin uu leeyahay oo wax laga wada hadlay oo dhamaaday sanadii barka hor bay ahaayeen wax hadda cusub oo aan dareensanahay ama aan isleenahay uu ku mutaysan karaa xarig ma jiro xorriyadda saxaafadda Somaliland waa wadan intaan ognahay waa dad dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxaafadda ku dadaala maanan malaysanayn xilligan inay imaanayso xarig nin fanaana oo caan ah oo komitista ah ummadda dhan ay wada taqaano wax gooni oo haleeyaanay jirin inay xiraan waxay nagu noqotaa in lagu cusub oo bajaysa yaa kaloo shaqaalaha TV-ga ka tirsan oo la socdo maya idin lama socon safarkiisa kaligiisa waxa ugu dambeyn hadda raje